ruushka iyo Ukraine ayaa qarka u saaran dagaal sababi kara in dunida ay gasho xaalad cusub. saacad kasta waxaa la filan karaa in xabadu qaraxdo kadib markii labada wadan ay ciidamo xad dhaaf ah ay ku buuxiyeen xuduud ay wadaagaan. haddaba maxaad kala socotaa awoodda ciidan ee ruushka? miyuu qabsan karaa Ukraine? sidee ayuu yahay difaaca maamulka Kiev? Maraykanka ka taliyiisa ma ku jeedi doonaa Moscow? Yurub miyay ka aamusi doontaan arrintan? muxuuse yahay abaabulku wada ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ee lagula dagaalamayo ruushka? Turkiga oo dhinac u aada garala waase sidee xaalka carabta iyo xog weynta Shiinaha? qodobkaas ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkii ugu horeeyay ee muuqaal baahiyahan cusub ee bandhiga TV. xiisadda labada wadan waxay gaartay heerkii ugu cuslay marka laga tago in aad dhaga maqal ka ahayd xogaha sida ay arrintan ku soo bilaabatay. wuxuu hadda xaalku marayaa low sahal. ruushka oo taageeraya kooxo Ukraine ka soo jeeda ayaa dagaal ku ah maamulka Kiev, laakiin dowladdan ayaa isku dayeysay inay isdifaacdo. madaxweynaha Ukraine ayaa saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqeen dalkiisa uu diyaar u yahay in wax walba uu isaga caabiyo dalka duulaanka ku ah ee ruushka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu ku dhawaajiyay sidoo kale inay qorsheynayaan in ilaa iyo 100,000 oo askari lagu daro ciidamada qalabka sida muddada 3 sano ee soo socota, waxaana warkiisu ku soo aadayaa xilli uu cirka isku sii shareerayo xiisadda dagaal ee kala dhexeysa waddanka ruushka. ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa horumar waaweyn sameeyay tan iyo markii ruushku uu la wareegay gacanka Crimea iyadoo aan wax dagaal uusan dhicin sanadkii 2014, wuxuuna bilaabay ruushku hurinta colaad gooni u goosad oo ay markaa ku nafwaayeen in ka badan 13,000 oo qof. dalalka dunida ayaa isha ku haya waxa ka socda xuduudda. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in maamulkiisu uu wado diblomaasiyad uu ku xalinayo xasaradaha ka aloosan Ukraine, balse waxa uu uga digay ruushka inay diyaar u yihiin wax kasta oo dhaca. Biden waxa uu sheegay inaan laga tanaasuli doonin qarannimada iyo madaxbannaanida Ukraine. isbahaysiga ciidan ee NATO oo Ukraine ka mid tahay ayaa dhinaciisa ku dhawaaqay in marnaba aysan wax ciidan u diri doonin dalkaas Ukraine si looga difaaco ruushka. warkan ayaanan u wanaagsanayn dowladda Ukraine. dalka Turkiga wuxuu garan leeyahay halka uu aado ama uu la safto, wuxuu xulafo leeyahay ruushka, laakiin heshiiskooda kuma jiro inuu ku taageero dagaalka Ukraine oo ka mid ah saaxiibada ganacsi ee ugu weyn ee uu Turkigu leeyahay. wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar waxa uu sheegay inay xoojin doonaan wadahadalo nabadeed si dagaal looga baaqsado. ruushka ayaa aaminsan inaan marnaba dhulka Turkiga loo adeegsan doonin in laga soo weeraro maadaama gataalaha nukliyeerka Maraykanka ay halkaa yaalaan. dowladda Ingiriiska ayaa isku dayeysa inay xaaladda qaboojiso. ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson oo tagay Ukraine ayaa sheegay inay qasab tahay in laga hortago awoodda Putin, laakiin Ingiriiska ayaa ugu baaqay dalalka Yurub inay joojiyaan dhoomaha gaaska ee ruushka ay ka soo qaataan isla markaana cunaqabateyn la saaro dalkan si loogu taageero Ukraine. dhinaca kale, madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa shaaca ka qaaday inuu rajaynayo in Moscow iyo dalal kale ee reer galbeedka ay raadiyaan xal waara si nabad loogu helo Ukraine. waxaase uu Washington ku eedeeyay in Ukraine u isticmaalayso hub amaba qalab lagula dagaalamayo ruushka. madaxweyne Vladimir Putin waxa uu sheegay in aqalka Kremlinka ee uu isaga ka taliyo uu darsay xogaha ah in Washington iyo NATO ay qatar ku yihiin ammaanka Moscow, taasna ay jawaab adag ka bixi doonaan. si kastaba, dood weyn ayay ka abuurtay fagaarayaasha caalamka ciidamada iyo hubka caqli ka fooqa ee ruushka uu ku daabulayo xuduudda uu la leeyahay Ukraine. waxaana la isweydiinayaa maxay tahay awoodda dahasoon ee ciidamada ruushku leeyihiin. tan iyo qarnigii 19aad Moscow waxay lahayd quwad weyn, inkastoo sare u kac ay sameeyeen dalalka loo yaqaano super powerka ay xurguftu kala dhexeyso intuu socday dagaalka qabooba. laakiin burburkii midowgii Sofiyeeti, ruushku wuxuu noqday federaal, waxaana si dhaqsiyaal ah looga waayay fagaarayaasha caalamiga kadib dhibaatooyin dhaqaale oo la degay. kacaakuf dhaqaale oo ruushku uu sanooyin badan la daalaadhacayay. Vladimir Putin ayaa noqday hogaamiyaha Moscow u horseeday horumar cusub oo dhinaca militariga, isagoo u qorsheeyay ciidamada militariga dalka miisaaniyad xadmigeedu sarreeyo. wuxuu horumarin ku sameeyay barnaamijyada ay adeegsadaan ciidamada militariga laga soo bilaabo ciidamada cirka ilaa iyo kuwa badda. sidoo kale wuxuu casriyeyn iyo horumarin ku sameeyay gantaalada halista badan ee loo yaqaano supersonic cruise iyo hubka kale ee dalkaas uu leeyahay. xulafada galbeedka oo idhaha ka daawanaya horumarka ciidan ee xooliga ku socda ruushku ayaa isweydiinaya su-aasha ah heerkee ayay gaarsiisan tahay awoodda militariga ruushka. jawaabta su-aasha Moscow ayaa bixisay maalmo yar ka hor markii ay ciidamo tiro badan
oo tayo xooggan leh iyo hub halistiisa leh ay ku gadaantay xaduudda dhereerisa laga soo bilaabo dal jamhuuriyadda Belarus ilaa iyo bariga Ukraine. hawshaas oo ruushku uu ku fuliyay muddo aad u yar. Talabadana waxaa loo fasiray digniin ku socota caasimadaha ee xulafada reer galbeedka oo ugu horeyso Washington. Horay Putin iyo dowladdiisa ayaa helay fagaare ay ku soo bandhigaan quwadooda kadib markii hogaamiye Bashar al-Assad uu ku casuumay Ruushka in ay soo farageliyaan colaadii dalkaasi ka socotay si loo badbaadiyo xukunkiisi. Moscow oo ka faa'iideysanaysa fursadda la siiyay ayaa dagaaladii ka dhacay Suuriya u adeegsatay hubka hypersonic kaas oo ka mid ahaa hubabka ay dunidu la yaabtay. Durbadiiba waxay suuqeynta Ruushka ka dhigtay inay soo jiidato indhaha caalamka iyo dalal kale ay hubka iibsada. Saraakiil guud Ben Hodges oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada Mareykanka Yurub ayaa si xishood ku jiro u qirtay in awoodda ciidamada Ruushka ay isaga ka yaabisay kadib markuu sanado ka hor goobjoog ka noqday gantaalka Kalibar ee Ruushku sameeyo oo laga soo ganay badda Caspian-ka amaba harada Caspian, taasoo dhacday inta u dhaxaysa Yurub iyo Asia. Gantaalkaas oo aan si aan leexad lahayn ugu habsaday bartilmaameedkiisii oo ahaa meel Syria ku taala. Wuxuu intaa ku daray in kaliya aysan ka yaabin awoodda gantaalka, laakiin sidoo kale wuxuu ka argagaxay in halkaas ay joogaan ciidamo fara badan oo Ruushka. Dhibaatooyinka dhaqaale iyo cadaadiska xadka baxa ah ee ugu imaanaya reer galbeedku, Ruushiyada uu Putin hogaamiyo waxay ku guuleysatay casriyeynta militariga. Taasina waxa ay hogaanka aqalka Kremlin-ka Ruushka looga aramiye gelinaysaa inuu awoodiisa ku fidiyo dunida, waxaana durbadiiba la arkaa joogitaankooda iyo saameyntooda muuqata laga soo bilaabo Suuriya, Venezuela ilaa iyo waddanka Afghanistan. Dhawaanaha Ruushka waxay si cad u muujiyeen in uusan NATO u ogolaan doonin inay isku fidiso xuduudaha galbeedka, gaar ahaan dalalka la midka ah Ukraine, halkaas oo ay ku nool yihiin shacab badan oo afka Ruushka ku hadla, taariikh iyo dhaqan ahaana xiriir la leh Moscow. Haddaba intee ayay la eg tahay awoodda Ruushka? Horaantii sagaashamaadkii oo ahaa xilliyadii ugu xumaa ee dalkaas soo mara, Moscow waxay si joogto ah u soo saaraysay xaddi badan oo hubka nuclear-ka. Waqti xaadirkan Ruushka waa dalka haysta kaydka ugu badan ee nuclear marka la barbar dhigo quwadaha kale ee caalamka. Ciidamada cirka Ruushka waxaa lagu tilmaamaa kuwa labaad ee ugu awoodda badan kadib marka laga tago Mareykanka, sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca Ruushka. 10 sano ee ugu dambeysay Ruushku wuxuu samaystay ilaa iyo 1,000 diyaaradood oo ay ku jirto ama ay ku jiraan diyaaradaha loo yaqaano Su-35. Su-35 oo ah diyaaradda ee tiknoolajiyad ahaanta ugu horumarsan diyaaradaha dagaalka ee uu sameeyay dalkan ayaa hadda loo daabulayaa Jamhuuriyadda Belarus oo ah dal isbahaysi la ah Ruushka, kaasoo sidoo kale darisna la ah Ukraine. Ciidamada cirka Ruushka waxay sidoo kale leeyihiin diyaaradaha wax bamgareeya amaba bambooyinka xambaare. Kaliya Mareykanka iyo Shiinaha ayaana diyaaradahan haysta. Ciidamada badda Ruushka ayaa ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ciidamada badeed ee xilligan, waxaana ka horeeya oo kaliya Mareykanka. Moscow waxay haysataa midka labaad ee ugu awoodda badan maraakiibta biyaha hoostooda quusa, kuwaasoo xambaara gataalaha balaastikada. Ciidamada dhinaca lugta Ruushku uu ku halis badan yahay, waxaana lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 3 milyan oo ay ku jiraan ciidamada kaydka. Taas waxay ka dhigan tahay Ruushku inuu yahay dalka leh ciidamada ugu badan caalamka. Ruushku waxa uu ku doodaa in uu yahay dalka haysta taangiyada ugu badan ee caalamka, waxaana intaa dheer in taangiga loo yaqaano Ta-72B3 lagu sameeyay casriyeyn isagoo oo lagu soo kordhiyay teknoolajiyad u saamaxaysa inuu u dagaalamo isagoo mugdi ku jira. Waxaa kaloo ku rakiban gantaalo ridadoodu fog tahay, taasoo ah waxaysan lahayn taangiyada kale ee dunida. Khubaro military oo Mareykan ayaa xogta xilli hore xaqiijiyay madaafiicda loogu magac daray Iskander-M, kuwaasoo farsamadoodu dhamaatay xilliga Putin, ayaa ka dhigan inay yihiin gantaalada balaastikada ah oo jiilka cusub, waxaana dhawaan la geeyay xuduudda Ruushka iyo Ukraine si ay u fuliyaan bartilmaameedyo loo baahan yahay oo gudaha Ukraine. Marka laga soo tago tirada badan ee ciidamada Ruushka, Moscow waxay ku dadaashay ilaalinta anshaxa ciidamada iyo sharafkooda, inkastoo weli ay socdaan qorista iyo tababarada ciidamada cusub, taasoo 30% ah ciidamada guud. Haddana ciidamada rasmiga ah ee tababarka wanaagsan haysta, mushaarka joogtada ahna dowladda ka qaata, waxay ka badan yihiin 400,000.
sida laga soo xigtay wasiirka difaaca ruushka Sergey Shoigu. ciidamada ruushka ee ka qayb galay dagaalka Suuriya ka dhacay ayaa waaya aragnimo ka soo helay, iyadoo sidoo kale hub casri ah halka ay ku soo tijaabsadeen. 92% ciidamada cirka ruushka iyo 62% ciidamada badda ruushka ayaa helay khibrad dagaal oo waaweyn oo wax ka bedeshay awoodda ciidan. Fred Gegan oo agaasimaha macadka America Enterprise waxa uu sheegay in wax kasta oo gantaal ah oo hawada loo marsiiyo ruushka ku tijaabiya Syria, taas oo la macno ah in Moscow halkaasi u tagtay bandhig tijaabo. ruushka waxaa ka jira dhaqan ah in marka ay dhalinyaradu qaangaaraan oo da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 27 sano ay qasab tahay inay military bartaan amaba ciidamada militariga loo tababaro. haddaba dad badan ayaa aaminsan in haddii uu qarxo dagaal u dhexeeya Ukraine iyo sidoo kale waddankaas ruushka uu dunida u horseedi karo xiisad iyo sidoo kale fowdo, isla mar ahaantaana ay adag tahay in xaaladda la xasiliyo. waxyaabaha ku soo kordhay xiisadan u dhaxaysa Ukraine iyo sidoo kale waddanka ruushka dib ayaan idinla socodsiin doonaa ee qaybta hoose inoogu reeb sidii adiga kula tahay iyo fikirkaada haddii labada waddan ay fooda isgeliyaan sida xal ku noqon karo. mahadsanid.